Assalaamu calaykum. Tani waa qiso gaaban oo cajiib leh. Nin Suudaani ah oo Muslim ah ayaa wuxuu deganaa dalka Mareykanka. Ninkan waxaa la jaarahayd islaan caddaan ah oo Yuhuudiyad ah. Dabadeed ninka markasta way caydaa islaantu, waxayna ku dhahdaa, uma qalantid inaad dalka ku noolaatid. Waxaad tahay addoon madow, waxaad tahay argagixiso. Laakiin ninku uma jawaabi jirin islaanta. Mar walba way waxa dhahdana wuu iskaga tegi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkii oo shaqadiisa ka soo rawaxay ayaa arkay islaantii caddaanka ahayd oo rag tuuga ay baadayaan. Markuu yimaaday ninkii islaantii tuugta ahayd, waxa uu arkay islaantii oo bir daboolmatay amaba koomo ku jirta. Waa uu soo qaaday islaantii, waxaana uu keenay dhakhtarka. Isla markii uu dhakhtarka keenay, islaantii way caafimaaday. Wuu nala joogay, wuu nala fadhiyay ilaa ay ka caafimaadaysa islaantu. Markay islaantii soo kacday, waxay aragtay ninkii madowaa oo ag fadhiya. Durbaba waxay ku bilowday cay iyo aflagaado. Ninkii madowaa wuu iskaga aamusay, waxaana ku yidhi intuu qoslay ayuu ka aamusay. Haddaba dhakhtarkii caafimaadka joogay daaweynayay islaanta ayaa waxa uu ku yidhi, hadduusan ninkan ku keeni lahayn goobtan maadan caafimaadeen amaba xaaladaadu sanatan may noqoteen. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo bishii Ramadaan soo gashay, ayaa islaantii ordaysa xaafaddii ninkii madowaa u timaaday, iyadoo qiraysa kelmadda tawxiidka ah oo laa ilaaha ila allah, wayna muslimtay. Intaa kadib, 2 bilood kadib, islaantu way dhimatay. Hantidii oo dhanna waxay ku qortay ninkii madowaa.